kulanti wacan wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo xubinteena kooban ee daaqaad oo inoo soo diyaariyay doorkan fadxii isla markaana inoo soo jeedinayo anigoo ah wariyay dun carbeed toddobaadkan xubinteena waxaanu ku soo qaadan doonaa qawaaniinta ugu yaabka badan caalamka ee la mamnuucay qaanuunku waa shuruucda lagu dhaqo dal ay ku dhaqan yihiin dad waxaana ku soo gudbinayaa kuwa ugu yaabka badnaa ee dawladaha qaar dhaqan galiyeen intii ay jireen kow dalka Ingiriiska waxa jiro qodobo qaanuunka qorayo oo qeexaya kaasoo mamnuuc ka dhigaya in lagu dhex dhinto aqalka baarlamaanka dalkaasi. laba dalka Japan waxa mamnuuc ka ah naaxista ama boorimaadka. saddex dalka waqooyiga Korea waxa ka mamnuuca xidhashada surwaalka jeemiska. afar dalka Australia waxa sharci ah haddii aad dhal soo gasho aad cunto oo aanad haysan wax lacag ah inaad eegaaga faraskaaga ama bisadaad xayawaanada kala duwan aad u sii dhiiban karto meherada inta lacagta keenayso waa nidaamka loo yaqaano rahanka. shan gobolka Florida ee dalka Mareykanka waxa mamnuuc ka ah inaad inaafikaad timaado ama aad ku dhuusto goobaha dadweynuhu isugu yimaado haddii aad arrinkaas samaysana waa lagu ganaaxaya. lix dalka Talyaaniga gaar ahaan magaalada Milano waxa waajib kugu ah inaad markasta dhool cadayso oo aanad afka isku qaban mar kaliya haddii lagu arko adoo aamusana waa lagu ganaaxaya. murugada iyo aamusnaanta waxa lagu ogol yahay oo kaliya goobaha jinaasada iyo goobaha cusbitaalada. toddobo dalka waqooyiga Korea lagama isticmaali karo internetka waxaana isticmaala kaliya madaxda dawladda iyo tiray arday ah oo jaamacadaha dhigta kuwaas oo kaliya ka baadha cilmiga isla markaana loo fasaxo waqti gaar ah. sideed magaalada Siriana ee dalka Talyaaniga xubnaha muhiimka ah ee jirkaaga gacmaha ma taabsin kartid mana xoqan kartid. sagaal dalka Greega dumarku waa ka mamnuuc inay xidhaan kabaha ciribta dhaadheer kaliya waxa ay ku xidhan karaan guryahooda. toban dalka Greega dadku dabada inay qaawiyaan oo baneeyaan way banaan tahay maadaama ay dhaqan hore u lahaayeen Greega hore kana dhisan yihiin dalkaasi taalooyin qaqaawan oo cadeyn u ah qaanuunka qaawanida taasoo aad meelaha qadiimka ah ee taariikhaha dalkaasi ka duugan yahay aad ku arkayso dad dalxiisayaal oo sawir qaawan ku galaya ama dumar fashion oo sawir qaawan lagaga qaadayo. 11 dalka Singapore xanjo lama iibin karo lamana iibsan karo lamana cuni karo waa sharci darro waxaana lagu ganaaxayaa lacag $10 ah. sharcigan ay dhaqan galiyeen sanadkii 1992 dalka Boortaqiiska kuma kaaji kartid xeebaha iyo badda waxaana ilaaliya badaha ciidan loogu talagalay dadka ku kaajiyay xeebaha iyo badaha gudaheeda waana xadhig sanawaada. 13 magaalada San Francisco ee dalka Mareykanka ma qoodin kartid shimbiraha xamaamka. 14 magaalada Barcelona ee dalka Spain waa magaalooyinka ugu mayalka adag dhanka diinta Catholic waana dad ku adag diintaasi haddana waxa cajiiba ka mamnuuca in dumarku xidhaan oo suuqa ku maraan libiska dharka hoos gashiga xitaa looma ogola inay xeebaha ku xidhaan dharkaas si ay u qorraxaystaan ama ugu dabaashaan. 15 dalka Britain oo boqortooyo dhacda qaaradda Aasiya waxa ka mamnuuca in sigaarka lagu cabo waa wadanka kaliya aan lagu cabin dunida sigaarka sanadkii 2004 ayay mamnuucday haddii uu hab suuq madow ah dadku ku iibsadaan oo ku soo galo wax xabsi daa'im. 16 dalka Shiinaha marka aad ka cuntaynayso meheradaha cuntada bileedkaagu waa ka mamnuuc in aad ka dhamayso cuntada waa inaad ugu yaraan wax xambayso. 17 dalka waqooyiga Korea waxa ka mamnuuca inuu qofku dhigto xaflad gaar ah mid dhalasho iyo mid farxadeedba kaliya waxa uu ka qayb gali karaa munaasabadaha qaran ee dalkaasi. 18 magaalada Montreal ee dalka Canada codkaaga kor uma qaadi kartid mana qaylin kartid weliga xitaa haddii ay dhib ku haysato. 19 dalka Japan qof wadada dhexdiisa iskuma dhunkan kartaan habna ma siin kartid waalidka xitaa ama ehelkaaga. 20 dalka Turkiga ma adeegsan kartid farahaaga marka aad sheekaynayso ama aad qof wax u sharaxayso ishaara ahaan maadaama ay faraka sheekayntu tahay luqad u gaar ah dadka dhagahala kaliyana ay isticmaali karaan. waa tahay daawadayaal inta waxa ku eeg xubinteena kooban ee daaqaad oo inoo soo turjumay fadxi isla markaana la socodsiinayna wariyaduna arbeeda inta dib u kulmi doono. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.